barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa dhiigga caadada marka uu ku dhaco wareer. dabcan xilligadaasi waxaa la yidhahdaa caado wareer ama caadadii ayaa qalqal gashay. intaan u gudagelin waa inaan ogaanaa horta dhiigga caadada goormee ay helaan gabdhaha. gabadhu inay dhiig caado hesho waxay ku xiran tahay korniinkeeda iyo nafaqada ay hesho iyo xaafadda ay ku nooshahay inuu guri barwaaqo yahay. gabadha haddii ay cayilan tahay ama ay kortay ama nafaqo fiican ay hesho ama cunto ku filan ay hesho waxay keeni kartaa dhiigga caadada iyadoo jirta 12 sano iyo 13 sano. sidoo kale dumarka qaarkoodna waxay keeni karaan xilliga qaangaarka oo 15 sano markay gaaraan ay heli karaan. haddaba markii ay gabadha dhiigga caadada hesho bishii mar ayuu u imaanayaa. xilliyadaasna wuxuu haynayaa 5 cisho ama 4 cisho ama 6 cisho inta u dhaxaysa ayuu haynayaa, kadibna way ka meeranaysaa, haddana ka waqti ayuu u imaanayaa. marka dhiiggaasi caadada waxaa ku dhici kara taqalqal ama noqo xaas ama noqo gabar yar ama noqo maxaa la yiraahdaa maamo weyn. waxaa imaan kara qalqal ayaa imaan kara. qalqalka imaan kara waxaa ka mid ah dhiigga caadada bishii 2 jeer inaad heshid. sidoo kaleeto 3 bilood ama 4 bilood inuu kaa maqnaado oo hal mar uu ku yimaado dhiigga caadada. sidoo kaleeto waxaad ku arki kartaa 2 sano iyo 3 sano inuu kaa maqnaado dhiigga oo hal mar uu ku yimaado. markaas waxaa jirta cilad baa jirta. markaas waxaa u baahan tahay baaritaan ayaa u baahan tahay. gadaal ayaan ka sheegi doonaa halbeega aad ula tagi doontid dhakhtarka. laakiin waxaan ka hormaraynaa waxyaabaha keena dhiigga caadadaada qalqal inuu galo. waxyaabaha keeni kara koo waxaa ka mid ah stresska. haddii uu kugu furan yahay stress, hadduu kugu furan yahay buuq, hadduu kugu furan yahay maxaa la yiraahdaa dhibaato, haddaad walwalaysid ama depression uu ku hayo dhiiggaada caadada, markaasi waxaa gali kara qalqal ayaa gali kara ama dhiigga caadadii ayaa waxaa ku dhici kara wareer ayaa ku dhici kara. markaasaas awgeed waxaa u baahan tahay inaad ka fogaatid dhammaan wax kastoo stresska kuu keenayo si dhiiggaada isku saxo. sidoo kale waxyaabaha keeni karta waxaa ka mid ah hormoonadaada inay qaldamaan. hormoonada caadiyan waxaa laga soo daayaa hypothalamuska, waxaana amar lasoo siiyaa pituitary glandska. dabadeedna hormoonada markaasi jirka u baahan dhan markaasi waa la fasaxayaa si ay u helaan wax ku filan xubnaha jirka. hormoonada lasoo fasaxaya waxaa ka mid ah FSH-ka, LH-ka oo markaasi ku shaqo leh ugxaanta iyo ukunta. marka kuwaasi haddii qalqal ku jiraan ayadana markaasi qalqal waxaa geli karta dhiiggaada caadada ama dhiig wareerkii ayaa imaan kara. sidoo kale hormoonada markaasi qalqalka keeni karata waxaa ka mid ah kuwa caanaha sii daaya oo la yiraahdo prolactinka. dabcan waxaad ogtihiin ama aad aragteen ama adiga qudhaada hadda barnaamijkan daawanaya inaad isku aragtay adigoo aan lagu qabin, adigoo nuujinaynin naasahaada inay ka yimaadaan caano oo markaasi caano aad isku aragto. markaasi caanaha ayaa kugu badan ama hormoonkaasi prolactinka ayaa jirkaada ku badan yahay. sidoo kale waxaa keeni karata hormoonada qalqalka gelin karata dhiigga caadada waxaa ka mid ah kuwa thyroidka ama hunguriga ku yaala oo kuwaasi sii daaya T3-ga T4-ka. kuwaas hadday jirkaada ku badan yihiin ama ay ku yaraadaan markaasi dhiiggaada caadada waxaa imaan karta qalqal ayaa ku imaan karta. waxyaabaha keeni karata oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah minkaada inuu xiran yahay ama tuubooyinkaada ay xiran yihiin ama maxaa la yirahdaa meeshii ukunta inay kasoo baxday burobiyood oo markaasi la yiraahdo cystic ovary ama ovary cyst oo markaasi biyo inay meesha noqdaan oo biyo ay xiraan. markaas gabadha qaarkood dhiigga caadada way weyn karaan. sidoo kale waxyaabaha keeni karata burobiyoodka oo kamid ah waxaa kamid ah polycystic ovary syndrome la yiraahdo oo markaasi labada gees labada ukun ay kasoo baxayaan. gabadha markaasi dhiiggeeda caadada way weyn kartaa, bishii 2 jeer ayuu ku dhici karaa ama dhiig badan bay isku arki kartaa. marka waxyaabaha keeni karata waxyaabahaas ayaa kamid ah. sidoo kale waxaa kamid ah cayilka. gabdhaha hadday buuran yihiin ama ay cayilan yihiin ama miisaankeeda uu badan yahay dhiiggeeda caadada inay weyso ama qalqal inuu ku dhaco waxyaabaha keeni karata ayaa ka mid ah. waxyaabaha kale oo keeni karata waxaa ka mid ah caado wareerka gabadha marka ay ku jiraan xilliga bigrada. dumarka qaarkood bigradaasi ayada dhan baa ku daboolan, markaasi ma lahan meel uu dhiigga ka soo baxo. sidoo kale waxaa lagu arki karaa inay caadadaada wareer ay ku dhacdo gabdhaha sida fircooniga loo guday ama loo qalqalay ama markaasi si qaldan loo talay. sidoo kale waxaa ka mid ah dhiigga caadada inuu qalqal galo markii aad gaartid da'da lagu talagalay in ay dhiiggaada uu guuro ama dhiiggaada uu kaa tago. tusaale ahaan caado wareerku wuxuu bilowdaa dumarka markay ay da'dooda ay gaaraan 35 sano ilaa 45 intay ka gaarayaan. xilligaasi waxay ku jiraan inay caado gooyaan. haddaba markaad isku aragtid waxyaabahaas dhan
waxaa isku arki kartaa calaamadahan soo socda. kow, gumaarka inuu ku xanuuno. labo, miskaha dhabarka inuu ku xanuunaan qaybta dambe. saddex, lugaha iyo qaarka dambe dhan inaad ka dareentid xanuun. sidoo kale xilliga dhiig uu kugu soo socdana inaad dareentid xanuun saa'ida oo markaas dhiig yar intuu ka yimaado haddana aaweysid. marka waa calaamadaha lagu garto. calaamadahaas markaa isku aragtid dhiigaada aad maxaa la yirahdaa weysid, waxaad u baahan tahay halbeegan inaad ula tagtid dhakhtarka. markaasi waxaad u baahan tahay doctorka inaad ku tiraa doctor waxaan u baahanahay inaad iga baartid hormoonada. sidoo kale hormoonada ku shaqo leh dhiiga caadada waxaa kamid ah kuwa FSH-ka, LH-ka, thyroidka kuwa ay soo daayaan, T3-ga, T4-ka, prolactin-ka, dhammaan hormoonadaasi oo dhan oo jirka ay ku shaqeeyaan waxay keeni karaan dhiiga caadada khalkhal inay galaan. marka dhakhtarku waa inaad u sheegtaa tiraa dhakhtar intaas iga baar. sidoo kale waxaad ku tiraahdaa doctor waxay saartaa computer dhanka minka iyo tuubooyinka iga fiiri, waxaan iga fiirisaa ugxaanta, waxaa iga fiirisaa burooyin inay jiraan, inay maxaa la yirahdaa burobiyood ay jirto, inuu infection jiro. sababta tahay infectionka iyo caabuqa hadduu raaga naftigiisa asagana markaasi wuxuu keeni karaa dhiiga caadada wareerka. marka taladaasi inaad ula tagtid ama halbeegaasi aan kuu sheegay inaad u sheegtid dhakhtarkaada waa muhiim weeye. barnaamijka intaasaan kusoo afmeeraynaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadiino.